جارجر كم سيكي تلفك صغر تلفن كي صغر كسكي صغر هذيك اسكراف soo dhawaada saaxiibayaal meel walba joogtaan dhammaantiin marka hore waad mahadsan tihiin meel walba joogtaan waa cawaysin wanaagsan waa booska oo si toosa idinkala soo xiriiraya Helsinki Finland taariikh baa dhacday caawa in la qoro u baahan in la xuso u baahan wax weyn baa sarag leh waxbaa salag live from Helsinki farsamadu waa cismad caynta anigu waa booska ka sheekay aad baan idin salaamayaa dhammaantiin meel walba joogtaan taageeraas Manchester la guul baa urjeenaya inta aan barnaamijka guda gelin ama ciyaaraha aan la daawanba waxaan rabaa marka hore news baan idin hayaa inaad iga gudoodaan oo Soomaalinimada xitaa u fiican waliga ma maqashay ciidan Ethiopia ee airport laga celiyay waliga ma maqashay xaaladda gobolka Banaadirna waa falanqeyn doonaa ciyaartan ka daahsanahay laftirkeeda Manchester iyo Wolves oo galan soo sheego qaab ciyaareed wanaagsan ku jira inta aan marka waxa soo dhan u guda gelin ayaan rabaa arrimihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya inaan share gareyno hadduu eeb saamaxo koramku waa buuxa Soomaa halka ma ka bilaabayna marka hore waad ogtihiin xaaladda dalka siyaasadda Soomaaliya xaaladaha dalka uu ku jiro in loo kala ordaayo muqallasiinta siyaasadda ay u kala ordaayaan hadba gobolka maamul goboleedka ay doonaan in lacag lagu bixiyo Faad Yaasiin ha ugu horeeyo galmudug anaa dhistay xildhibaanaan ka rabaa Hirshabelle anaa dhistay xildhibaanaan ka rabaa Jubbaland sidoo kale inkastoo Puntland guul weyn ka gaartay arrintaas oo shaki badan aysan ka qabin hadda arrinta Jubbaland bay taagan tahay dad badan baa news ka sugaya xaaladda Jubbaland oo ka war dhooraya waxa socda maadaama website-yadu iska soo qorayaan hadba kii lacag siiya anigu cadaaladda iyo xaqiiqda iyo runta ayaa igu maanaysaa Jubbaland dad badan baa xiiseenaya waxa rabaa inaa wax yar kaga taabto horta baarlamaankii Jubbaland waa la soo xulay si sharciina gudoomiyaha baarlamaanka waxa loo doortay sida ogtihiin dad badan baa og laakiin waxa rabaa kuwa aan ogeynna inaan ka dabageeyo oo waxa la doortay gudoomiyihii hore saaxiibka dhow ee madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madoobe hadda qamiistana waa doorashada madaxtinimada Jubbaland oo ku beegneed sabtidii waxa loo baajiyay ama farsamada ama dhinac kale ha noqoto ama qancinta beesha caalamka ama midda igaad tan gobolka Soomaaliya ha noqotee murashaxiinta Jubbaland ayaa waqti la siiyay in ay soo xaadiriyaan warba idinkaga haya ayagana sababta u soo xaadir waayeen hebel ilmi muga kamida xidig baa kamida Omar baa kamida nin is soo xaadiri mala sababtan waa idin sheegi doonaa Axmed Islaam Axmed Madoobe xafidullah amrallahu labadaba uu istaahilaa ayaa kaligiis taagan anigu Axmed Madoobe ku idmaahi sababta u taageerana waa qadiyada fikirkiisa adag iyo Soomaalinimada sida ugu weyn tahay go'aankiisa dadka waxay ku doortay inuu ka dhabeeyo intaan marka barnaamijkaas u guda gelinba waliga ma maqashay ciidan Ethiopian ayaa la celiyay adigu waliga ma maqashay ciidan Ethiopian waxaad kaliya maqli jirtay ciidan Ethiopian Bakool soo galay Bay soo galay Galgaduud soo galay Mudug galay Xamar soo galay Shabeellaha dhex galay ciidan Ethiopian la celiya waliga dhagahada ma ku maqashay xitaa saxaafadda Soomaaliyeed ma ka akhrisay Siyaad Barre Allah ya rahma ilaahay jannadii firdawsa ka waraabay ayaa u dambeeyay in ciidan Ethiopian ay dareemaan in dalku dawlad leeyahay waqtigii Siyaad Barre u dambeysay right now maanta history weyn ayuu sameeyay Axmed Madoobe sidaad ka filaysiin taageerayaashiisa kuwa aan Axmed Madoobe taageersanayna way ku taageeri doonaan arrintan everybody knows Ethiopia waxay Soomaaliya u tahay bal nimanka intay Soomaali Maxamedey Dubai diyaarad ka soo ijaarteen horta intaan u guda gelin taariikhda lagu sameeyay maanta Abi Ahmed awal caro la jiifa hal la jiifa muxmee
nimanka aad ogeedeen beedhabo waxay ka sameeyeen oo doorashooyinka Soomaaliya saameynta ku leh oo ninka gabra ah dhigta wax uu sheegi jiray madaxda Soomaalida Xasan Sheekh baa ugu dambeeyay maanta Soomaaliya waxay tahay ayaa la dareensiiyay luqadeer taan noqoto taariikh qoranna way maalin hore erga farmaajo u dirsaday ayaa in kaga soo bilaaba taariikh yar hal daqiiqo qaadanayso way erga farmaajo u dirsaday ayaa Axmed Madoobe loo diray oo leeyahay ninkaas naga cadaadi kuma qanacsan habka doorashadiisa sida ku cad wasaaradda arrimaha gudaha way tibaaxday way faalisa fikirka madaxtooyada laga aaminsan ma aqbali doonay dheen inta u guda galay wafdiga Itoobiya wuxuu kala hadlay Axmed Madoobe markuu u tagay wuxuu dhaa warqad baa ku socota madaxweynaha Soomaaliya ku socota Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ka socota madaxweynaha Soomaaliya markaas Axmed Madoobe waa akhristay oo wallahi hadda waa run waxaan ka hadlay Axmed Madoobe wuxuu yiri su'aal ayaan rabaa inaan idin weydiiyo idinka yaa matashaan waxay dhahan anaga Oromaan nahay waxaan ka soconaa Itoobiya sidaad ogtahay madaxweyne waxay dhahan Oroma iyo Soomaalina friends waa walaalo hadda yaad matashaan oo marka Itoobiyana dadka siin xaaladda guud dalka igala sheekaysta farmaajo ka soconaa warma waana saxsay hadda farmaajo wuxuu miciin biday in Itoobiyaan uu adeegsado Axmed Madoobe laakiin dadka markay isku duumaan oo aan galmudug amal ahayn oo baraadir amal ahayn birbu wax ka matarta Itoobiyaan Israa'iil Mareykan iska daay wuxuu dhahay maxaad u baahantay waxay dhahan waxaan ka codsan lahayn in dawladda Soomaaliya aad la shaqeyso adiga Axmed wuxuu dhahay moodi siyaasiya anigu wadaad baa kaliya u haystay siyaasina wuu ku ogaa laakiin heer intaas leeg sirdoon Itoobiya inuu saa ula sheekaysan karo madaxweynaha wadankuuba u qalmaaba wuxuu yiri aniga dawladda Soomaaliya inaan la shaqeeyo iyada laga kari waayay si lamida sida maamul goboleedyada kale waxay dhahay masaas baa adigu sida loo falgalay oo wax walba la isku dhaafsanay waxa lagu la saldhigtay oo gogasha ay ku soo xirantay adigi aniga hadaa macaamilna ka waran terbatulwa welcome finish ka sorry welcome to Jubaland ma heli karnaa ideen dulmaadida Ethiopia Airline from Addis Ababa Kismaayo maxaa diiday wax kasto business ah oo Jubaland iyo Addis Ababa magaalooyinka Addis Ababa iyo Kismaayo mideenayo waan soo dhaweynaa idin Jubaland ee madaxweynahan u hadlay horta Ethiopia waa kuwaas inta farmaajo power u dirsaday danaha Ethiopia ka shaqeynaayo iyo shacabkooda kuwaas way horta waa idin dhaaftaa hadaan maqlina oo wallahi kaftan ma hadaan dhaarto nimanka intuu farmaajo dirsaday danaha Ethiopia iyo businesskooda iyo diyaaradooda dulmaadooda ka shaqeynaayo waa laga soo tagay Soomaa maanta Jubaland soddon iyo dhowr sano kadib diyaarad Ethiopia leedahay hawada laga celiyo Soomaaliya magaca Ilaahay baan ku dhaartay ma dhicin Soomaaliya diyaarad ay leedahay laga soo ijaartay Dubai oo ciidanka Ethiopia ay soo ijaarteen 75 commandos ciidamada Ethiopia oo tababaran waday ayaa duhurkii ama barqadii maanta isku dayday inay ka soo degto airport Kismaayo ciidanka gaarka ah ee ammaanka qaabilsan Kismaayo ayaa dib isaga caabiyay oo waabiyay ogolaanshana kameen inay caga dhigato way laabatay dib bay u soo laabatay telefoon kadib waa la celiyay Kismaayo laba jeer ay ciidanka Jubaland ay qaabilsan airport dib ugu celiyeen oo way ku hungoobeen safarkoodii sababtaas waa fafaahin doona laakiin anigu waxay maadaama aan u dhuundulelo arrimahaas waxay la tahay waa niman power isbaday oo aan wargelin madaxweynaha saas darteed ayaana dib loogu celiyay de wax kale ma ah wixii lagu heshiiyay ma keenani tan kale waxaan jeclaan lahaa qaybta kale waxaan jeclaan lahaa igara lahada maanta markii la celiyay diyaaraddu waxay ka tagtay Baydhabo caga dhigatay iyadoo Kismaayo lagu hungoobay abshir waayo taas wax kalena ma aha diyaaradda 75 askari oo Ethiopian u malayn maayo 30,000 ka badan ciidamada Jubaland inay wax ka tari karaan igad baa soo hadashay fiidnimadan intaan live ka soo gali ka hor oo madaxweyne Axmed Madoobe la soo hadasho alla waa ka raali gelinayna amaankana doorashooyinka iyo kan airport-kana waxaa ku filan ciidanka Jubaland waad faanteen update-ka Soomaa waana ka raali gelinayna hadaan nahay igad amisom taliye amisom iyo madaxdii igadna way ka raali geliyeen mashaqadii Kismaayo dhacdo oo dad badan oo ka mid ah aan u wareyn dayo waa sax Soomaalida iyo Oromada waa walaalo marka sheekadayo uu soo qoray ayadana waa ku laaban doonaa oo airport-kii Muqdisho
ayaa make up loo marinayaa stadium muqdisho maadaama koonis yiriso loogu magac darana taasna u soo laaban doona tanan dhameena markii nimankii nabad in Allah waa u taag waayeen waxay leeyihiin marka hadda oda dhaqameedyadii Jubbaland ayaana raali ka wax ka socdo meesha oda dhaqameedyada hadda inta laga yaqaano waa ugaas Xuseen oo nin ogaadeen ah oo cooliyaan ah iyo ugaas kale mareexaan ayaa soo haray ugaaskii cooliyahan gacmuhu taagta haddaad maqasheen oo wuxuu leeyahay waan aqbalay habka nidaamka kadib wada hadallo mira dhalay loo dhafray oo uu geliyay madaxweyne Axmed Madoobe waa lagu guuleystay taas horta waa hambalay shacabka Soomaaliyeed waa hambalayna hadda ugaas mareexaana maxaa ka sugayay marka farmaajo adeerkiis ma wada hadal u rabaa farmaajo adeerkiis lacag ma lagu xalinaa farmaajo adeerkiis nabad ma qaadanaa farmaajo adeerkiis waa madaxweyne ku xigeenkii galmudug oo xaafkana sawaayo waay intaan farmaajo imaan ka hor xasan sheekh ahayne ninka edeb badan male kabo fiiri hal kobay iskala casaysan jireen baraaslah sa u taqaanaan markii farmaajo uu imaadana cadaadu u guuro waa ninkii xaafkana sawaayo waay qabiil cad waa taas haddii madaxweyne ku xigeenka galmudug ee mareexaan uu wax mucaaradayo farmaajo ka hor aniga qoorihiisa arki leen xaniyihiisa kartidiisa hadda ugaaska mareexaana qadiyadii iyo cadiifadii qabiilka heeso waaba dad fiiri midda kale haddaan la kaftamo walaalay mareexaan inkastoo dad badan oo muxaafada iyo mucaarada ay leeyihiin iyaga laftirkooda waxa hantiina idiin sheegaa madaxweynihii Soomaaliya idinka waay halkaad wax isku soo dhaweyn lahaydeen ayaad wax qaseysaan weli ma aragtay haddaan kaftan u laabto waqtigii abgaalka madaxda ahaayeen xasan sheekh abgaal wax qasay ma aragtay hirshabeello ayaga majority kiina la maamul xawaadle galgaduud ee ka yihiin ceel dheer ilaa masgawa ilaa cusweyn dhulkaas la dhaafiyay wasiira leedin kaliya waa inaad aqbashaayo have to accept markaad dalka madax u tahay inaad xishootid waay in hambada aad ka sugtid waay dad cuntadii kaaga horeeyo Soomaaliya madax ka hadda imaado ka war oo aan baran hadda see igu aamini karaa dhaqan ma la ilaaliyo ceeb ma jirto xishood ma jiro dadkaas hadda waxna la wadaagaya waana mareexaanka kursiga jecel maane kuwa nasabka ah ee ay farmaajo dhaliishan kama hadlay hadda way isbedeleen mareexaanka kala tageen way hore waa isku qaban jireen Sooma hadda dad qadeeyay dad quraacday kala leeyihiin taas waa taas ugaaski marka cooliyahan wuxuu dhahay madaxweynahan cid noo dhaanto ma jirto madaxweynaheena cid noo dhaanto ma jirto waan aqbalnay sharaf u leeyahay ugaaskaas loo dhutin maayo ma maqashay hebel waxba laga ma qaban karo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe wax laga ma qaban karo aan u gudubno qodobka labaad waa kuma murashaxiinta isdhiibay kuwa arajada laheen yaas oo cad su'aashtaas kuwa isdhiibay ilmi mooga kamida hurdaya kamida oo mar xajku hurud oo salaad duhur hurud oo maqrib hurud oo jumca hurud iyo xidig waxay okay maxay isku dhiibeen dadka Soomaaliyeed u sheegnaa rabna ilaa hadda bari waxay leeyihiin Axmed Madoobe lama tartamin ninkii xaniil ha imaado okay maxaa ku marsiyon kartaa Axmed Madoobe asaa xildhibaanada soo xushay oo xasan sheekh maxamuud yaa xildhibaana aan isaga raali ka ma joogo doorashada Soomaaliya maxay ugu coday waayeen maxaa farmaajo loogu sirmay ii sheeg xildhibaanka markuu gacan taag yahay uu ka baqi karaa laakiin markuu codsantu ku shabasho tahay xildhibaanku danta dadkiisa iyo ummadda iyo diintu fiiriya arnin Axmed Madoobe dhaam ilaa qof u jeeda marahe ha imaado haddii ay dhacdo in Axmed Madoobe laga guuleysto waa qodob haddii uu dhacdo inuu guuleysto kala saarno Axmed Madoobe haddii laga guuleysto dadka Jubbaland iyo xildhibaanada Jubbaland wuxuu ku hayay cadaadis dhibaato dictatori laakiin hadduu guuleysto soo nin dadku u roon maaha soo nin qeyrarka amar qaato warkiisa oo diida soo maaha soo nin farmaajo aan aaminsanin maaha soo nin Jubbalander aaminsan maaha soo nin lamida inuu laba sameeyo Puntland soo maaha soo nin aaminsan maamulkiisa inuu ka wanaagsan kuwa liita Hirshabeelle iyo Galmudug nin aaminsan soo maaha soo nin qadeeyay maaha ninka ragga guushiisa si ma ninkii ceer wasaaradda arrimaha gudaha maamulay ee Sheekh Shaakir u tagay isagoo ceer ah ee xaafo habar gidiro saxad adhahay kala jabi isku dir horta xishood haduu jiro habar gidir maalinta hadday isdhameen lahayd waqtigii Shaakir iyo Caafi saxad ceer meesha kala gaareen hadday habar gidir isdhameen lahayd habar gidir kala mas'uulkeed dadku qeyr ay eegayeen farmaajo eegayeen ninkii wax loo soo diray waa wasaaradda arrimaha gudaha ninka haysta waa Sabri hadda ninkii cidiisa rabsho ugu dhiiranay shar ma ogaadeen ugu dhiirado haddaan rag xabsi garan
haddaan raggu cabsi garan ka waran wasaaradda arrimaha gudaha ninka madaxda ka ah ee ceeray saacad isku diraya boorsho lacag u qaadaya wadda waa la xiraa ka waran shalana aeroboortkii caafo meesha fadhiya leeyahay soo deg ku bahdil ku fiiri walaalkaa oo aad adiga cadowga ku eegataa ama ku damootaa inay abgaal waa adigoo bahdilantid oo sharaftaada hoos u dhacdo waay hadda ogaadeen fiiri nasabnimada ogaadeenka nasabnimadooda axmed madoobe keliya ma ahanba nin kale oo xataa axmed madoobe ku level ah ilaan madaxweynaha waa hal qof soomaa wasiiraa jiro taliyaal ciidana jiro oo u fududeyn karo inuu ninka ceer ama wax un ka socdo representative waa dowladda madaxtooyada villa soomaaliya wardhiigley oo imaan kara ma jiraa warnimayo xishood ma jiro dastuur lama ilaaliyo diin lama ilaaliyo dhaqan ma jiro lama kala xishoodo soomaalinimo ma jirto ee xooggaa la iskula joogaa haddaan taas garan karinaa ii sheega habeenkasta khudbad ma wadi kara jimco maane axmed madoobe wasaaraddii warqad inay soo saarto soo maha cabdulshadeey wiil jooga camal ama wiil libiya ku xiran nuucidiis dhahay hallee soo daaya muqalasa ees saasay noqoto wasaaradda arrimaha gudaha laakiin markay abargidiri abgaal iyo mursado la aadayo iyo duduble waaba laga sii dagaa dhuusamareeb kismaayo ka deg could you fly kismaayo rag ma tahay wax kale maa soomaalinimo looguma xishooyo axmed madoobe walaalnimo ma jirto diin ma jirto dhaqan looguma xishoonayo baawaraa looga xishoonayo ay ogaadeen isku xiran oo qadeeyo ruufiyaanana ma qabaan soo dhoweynayo kolley aniga waxaan ogaa majarteenka horta waxaaba saacidaysa dad oo civilized ah waay oo 20 sano maamul leh waay marka ilaahay ka baqno oo bartayba saan uma talin kartid maraykan cid uma keeni karo walaa xasan sheekh oo abgaala wax u keeni karin walaa qeyro mursado wax u keeni karin iyaga is dooranay deniya soo baxaya isday abduuli gaas soo baxaya isday war farola imaanaya isday doorashadooda iyo nidaamkooda lama dhex geli karo hadda nimanka ogaadeen sharaxaad uma baan oo leefa ka dhalato 30 sano Itoobiya iska celis 40 sano ay jabhadaas ku jireen oo ku caruur dhalayeen haddii ay ogaadeen ka rufiyaan ahaan lahaayeen ee iyaga isdili lahaayeen wallahi ona lafsado san majirleen marna la soo wada qabal lahaa ogaadeenka la iibsaday ee lacagta qaatay ee Etoobiyaan daba socdo kaas kama hadlayaan ogaadeenka qadeeyeen nasabka ee farci sayidka wallahi inaan la gada karin farci sayidka ma gadmo ana cadeen kuugu filan ona lef sirdoon Etoobiya ka qatarsan ma igad ama Afrika ku yaal maxaa loo soo qaban waay duurka ku jira duurka yaala Etoobiya Soomaaliya soo nagama xoogay dhulka Soomaali waaye maxaa loo soo qaban waay ona lef nimayaho nimankan Etoobiya ku daashay militarigooda ku daalay abdi ilaya ku daalay liyo boris ku daashay militariga Etoobiya ee siyaad bar iska dhiciya ku daalo soo qaban waaye sirdoon Mareykan leeyahay soo qaban waaye in Oliver isku tagay markii loo taag waayay ayaa nabad abi Ahmed la fur abi Ahmedna wax soo biiba maahane waa wax intee tashadeen dheen war nimankan dagaal xukuumada waji cusub oo keen ninka ragga afiri waa la xushmeeyaa markuu dagaalamo dhiigiisu huro nimankan ogaadeen dad dhiigoodu huro waay mana ku war la fariin la'aana maaha nimankii war dhiig leh jooga ku eg ee isku ilaaliya dhagaxyada horyaan anu waxa la yaabaa dad kaftamo nin war dhiig leh isku ilaaliyo oo bakaara tagi gar wasiirka wasiir bakaara degan ma aragtay wasiir suuq xoolaha degan ma aragtay wasiir suuq bacaad degan ma aragtay hal jidey wada degan wasiirada macrawiidka miya masuuqa inta kasku soo masuuqa Stockholm miya hal meel wada degan nimankaas Axmed Madoobe inuu tariyaan rabaan Axmed waa tagay baarlamaankiisa waa xushay gudoomiye baarlamaan waa doortay khamiistana doorasha dhacaysa nin isu soo sharaxay ma laha sababta isku soo sharaxayna wax kala ma oo maxay tahay xidig iyo huday Omar de waxay u socdeen in sida Omar ta lafta gareen amal loo wato hadaan la jiideen ma soo karaan ninka ragga waa inuu soo wado nin la jiidayo dad meel ma gaarsiin karo wax nin la jiidayo meel kuma gaarsiin karo dad in la jiid u baahan waay hadiiba libaax oo banaanka imaado jiis ogoleen hadii ku soo dhiirano barxadan lagu laga damay ku soo dhiir come here male waa ogaadeen in Axmed Madoobe loo geli karin bartooda iska joogan marka waxa ay soo siyaadi karaan ma jirto bartaas ay joogayaan joogi doonaan madaxweynahana maalinka khamiista Axmed Madoobe kaligiisina soo istaaga umaleeyaa 4-5 ku qaada midda kale politicalka iyo sportska waxbay iska shabahaan politicalka iyo sportska waxbay iska shabahaan way iska shabahaan hadda aniga Real taageeraa iyo Manchester Messi weligood labadoodu ma ciyaarin dadka ciyaaraha daawado ciyaaraha dadka kale ciyaaraha daawo war Messi weligii kubadiisa ma macnaa ma taageerin laakiin waxba laga maqan karo Messi dunidana ma arag xan kuma maqal nin lamada isaga aan Ronaldo soo ma taageerin u kala cabsay aan walba green nefal ha hadlo Kim Garagar ha hadlo ama Bale ha hadlo qof waxay isbisan Soomaa ana xaqiiqdii sheegay ciyaaraha
ميسي واحد جاره كبد عك معجزة وأنا تقطع وأنا حفلت إنك سبورت سيد الويقان سياسة ده مساس وكلاوي أحمد مذوبة وحبل لك ما قلبك هو ميسي الصومالي هو هذا سببر عمر هداي بلايك سببر وهذا سببر دكتي سمولين إيه ميسي مسوا عنه صدق ميسي ونشان ياريان وجوي كروا أحمد مذوب وميسي وحوا السياسة والله يقف كلام حقره بيل كم قات الدولة الصومالية أمر كم قات وتاجي اسم ذي نين مرشح أبقى لا ما قيس برنا شيء أما الشيخ شريف هالنقطة أما حسن الشيخ هالنقطة والله هو وعي أحمد مذوب هو يبغى ما قيس مش شيء فسكورت ريسو وسر ويري أحمدو ما أنت قدومي برلمان كلا دورت أو حلبانة دورت أو دورشة الإعلامية أو باش عالم كإسكت دعوانيس أو حبك كذي كريم فيري باش عالم تم صوب ذا باش عالم كوعتري وحلاقيها بسيدة السعودية هذيك وركي فرماجين تقول لنا وعلا بيل عالم دستور كجبلان ما بقول أي واحد الله بيل عالم فرماجة قبل سنة الله يا أنت جبلان واي شعب كجبلان أنت كل راحيست إيه اسمه مولاي الرجال نمو يضمني ماشي سكوتم بسايق أوصل لابت من ويري مرشح أنا أبقى ما يعيش بالشيء جاي ويري أحمدو توعي حدام بس أنا جا إمادوده وصلت وحلله هاي أستامها اللي جه اللي كرقف رئيس الوزراء اللي قلته حدام بس صلت يسمع هذا أبقى له وأظن ما هتصن ما كتق لوس كرتاو داي مسك إلى هذا كرتا أمانين هذا جميلة ملوه اللي كرا جبلان أحمدو نين ما عرفت أصول جوية واتقانان إلا محكمة كجري ونين صومالي أبدا كيغان وعود هاي سيدات هذه يجوب بهانتا يوم كل شيء dadkayna way u baahan yihiin laakiin waqtigaas ilaahay ku guuleeyo dhaay nin iga wanaagsan waa heli doontaa hadii teeda noqoto waa arki doonaa laakiin hadda diiradda waxaan saaraa kooxdeeda sida ciyaaryahan marka la dalbado la maarto waxa ku soo dalbada riil asoo majistro ciyaaraha wuxuu leeyahay taas hal la gaar laakiin hadda kooxdeeda sida ugu shaqeeyay ayaan ka fikirayaa axmed madoobe nin noocaas ah waay nin fiir ninka ragga ah waxa laga qaataa adeeg iyo karti iyo dadkan ma hogaamin karaa maxaa iga xabeejinooyo maxaa la iisoo gelnooyo shirinkiisa ma qaato axmedo weligii lama hadlin jubbaland weligii ma tegin uma socdo igu qabiil ma aha maxaan ku taageeraa qofka dadnimadiisa ilaahow muqaabal ha noqdo soo man maxamed suweer Soomaali ri Abdullah ilaahow mo ciida gal noqdo qofka haduuba adkiisa dhacsanayo is my friend is my brother iga bar dadka yaa Faisal Ali Waraabe soo ciida gal ma is my brother صلاة على الجيل إلى بكاس يقول كده is my brother أحمد مذوب is my brother عبد الله يوسف الله نحرسته was my brother سياد برد سيدو كلاوة ما فهمتوا حس الشيخ القبيل فهم يسين مال بدنا صمرة is my brother ساعتها ما فهمتوا كي حسن على غير صمد الدنيا is my brother قف كأنه وركيس عدستار يعني نك رجع أو شحلي مر أو ليس إنه دمر ليش كاستو ورك غريب aniga ninba ninka ka aamusnaan iyo ka munaafaqsan waa adaweyga waxa ugu qabila ninka umadiisa runta u sheegay ugu qabilani wallahi ahmed madoobe inaan qof siisanin aniga karti fiiri wuu jilci laha hadda shariif sakiin ma ninka baarsan Soomaaliya jira wuu fiirshay ma waxay kula tahay inuu lacag la carare shariif sakiin wuxuu arkay ninkii Soomaali sugis oo Ethiopia naf baday ee wiilashii raxway iyo kuwii hadame iyo kuwii kale raxwayna wada dilay وفير شيء هو ده إلهي ملك على كاتس شريف وحول لتجي فير معها العجير معها دولتنا أوتوبي لرا أو تاريخ نتحت على اللوجيا أيها كفر قلبي إذا كاس مساكينته أكو ضلبت ملك على كاتس والله أسوق اسطنبول جوج شريف أيام وحن ويدي شريف سكين كورن أود فرماجان وحفا الله ذينا مال وعوده فرماجو كل سياسي واتقانان فرماجو وعوده حد وحبك ما دها لكن مر اسبرنا لكن انا هذا ترتن فرماجو كل جر ما بجرو نين وعابونه وبرتب حد ووزاره المجود ودري كرين وزير كيسا ودري كرين مد اوغادي ودري كرين مد اوسو ودري كرين اي waxaan ka baqa qamiista taariikhna dhacdo ahmedow la soo istaagno ee ka sheekay markaas ahee ahmed madow markuu soo istaago kaligiis ka sheekay markii كليجيس اللي نك نموتو ما سوان كرو وكب واي أوف كبن جبلان كب أيضا أباهن نن جبنا ما كبي كربا الصوت توسي جبلان مركز معمول
dad noocaas ah waay dad noocaas ah waay qoladan qeyr laawayaalna yihiin waa ogeedeen dhuu samareen magaalo laga qadeeyo sharaf leh ajirta haddana rasaasa ka socota habeen kasta intaasay ku faraxsan yihiin aaw maamul gobol mudug maaratay niman yahow wax dad noocaasaa jiro aan u soo laabtay axmed madoobe iyo historyga hiirinimada uu sameeyey aan u soo laabtay nin la yidhaha maxamed dayow ayaa maanta wuxuu soo qoray make up ayaa wuxuu yidhi stadium muqdisho profilkiisu soo dhigay stadium muqdisho make up aa loo marinoyaa u dhahay micnaha waa la dayactiroyaa waa dhisnaa wuu iska qurux badnaa laakiin make up aa loo marinoya marka waxaan rabaa isla marka uu soo qoraa waxaan anigana damcay inaan isweydiiyo make up aa loo mariyey gabadhaane ama meeshaase ya ninka guddoomiyaha xigay abgaal markuu dhinto maal loogu magac diri rabaa haddana aniga ha is jiro guddoomiye kastoo soo socdo abgaal ah ha is jiro meesha loogu magac diri lahaana waa la diyaariyey maanta nin siyaasiya oon saaxiiba nahay oo isla dowladda soomaaliya xubin weyn ka ah aniga qof siyaasiya wuxuu ii sheegay horta weligay hebel wax ii sheegay miga maqasheen hadda siyaasi tahay bannaanka iskeen waxba ha iga qarsan aniga waa ku cadaab galaa waxa sir ii sheegta dad bilaadan magacaad u sheego waa ku cadaab galay wuxuu leeyahay mataqaan booska hee warniyo yiriiso horta markuu tagay inuu dhinto mala socotaa warniyo waxaan ku yiri maama qadiijo ayaa wafdigiisa qaabilsaneed maama qadiijo mid ma raacayso taasaan kaa huba ahaan dhahay maama qadiijo mid ma u jilayso shacab khiyaano laguma yaqaanana maama qadiijo laakiin farmaajo ee kheyr qof kale hadday wadi lahaayeen lama shaki lahaa anigu fikirkeen ka hadlaa maama qadiijo dowladdaas dhisanaad u jeedid iidan ka aaminsana sababta mataqaana waxay taqaan ixtiraamka dowladnimo haykalka dowladnimo taqaan 20 sano ee dowladda ku dhex jirta ad listi qof shacabkeeda ka xishoonayo eedada miya habartay miya ma wuxuu rinka soo dhawow taas waa fikirkaada u dhahay aniga waa fikirkii taas ilaa hadda waa aaminsanahay wuxuu dhahay horta nimankan ninkaan oo meeday wadeen ama xataa halis ah horta ninkaan maba gaarin oo wuxuu dhahay abgaalka laga baqayo dhaa inay kacaan dad waxay dhahaan salaad gabeere iyo dad fiiriya dhalinyarada ee mudulood ama kuwan hiraabay hawiye horta salaad gabeer kiiskiisa ma taqaanaan mana dhalnaha qabiil qof hortiisa lagu dili karana ma jiro ee salaad gabeer historygiisu maadan dhalane ma soo akhrisateen ama khudbad siyaad bar ma daawateen ma dhegaysateen salaad intuu dambi siyaad bar ka gala ma taqaana allah u naxariistee nin geesi horta wuu ahaa nin haliyeeyo dalkan u fiicanna wuu ahaa laakiin nin aan marna siyaad bar ka amar qaadan waay siyaad bar dee xayawaanada ka amar qaadan jira qofkan uu ku qasbay haddaad ka amar qaadin inuu iska dhaafiyo salaad tolkiisa iska daayay ninka sharciga keeno waa ninka afgabi keeno hala dilo siyaad asagaa saxiix maxaan kuu qabtaa oo dhaa wasaaradda gaashaandhigga ma ku siiya ala sii wasaaradda gaashaandhigga soo baray siyaad bar oo salaad ahaa salaad markay tolkiisa u tagayna dhaheen war ninkan maxamed siyaad bare u qir ama dowladnimada cafis ka dalbo dalfaca ugu horreeyey oo nin cabdi macalin wuxuu dhaha caruurteeda iyo curudkeyga iskool kadib aniga siyaad bare ma aaminsan hala tugto horta qabiil qof hortiisa u taagi rabaa nin kastana asaad go'aanka iskale nin geesi oo haliyeeyo saas u tagu ahaa nin asoo dhahaya tolla'aana eesa dhinta ma ah nin siyaad bare shakhsiyadiisa diidan oo markii oo la dooranaya dhahaya ushaada ninaa u dhiibi kartid aa laga qaataa nin noocaasu ahaa nin noocaasana maraykan uu ku jiraa etoobiya ku jiraa waddankasuu ku jiraa haddii la dilina qabiil maa qabiila qof lagu hordilay hawiyaa ninkooda lagu hordili waxaas waa been ama abgaala ninkiis lagu hordili waa been abgaal oda dhaqameedkooda dhan uu siyaad bara diray intuusa toogan kor oo dhan ninkan dalka u baa ma toogan karee la soo hadlo wuxuu dhaha masiyada ka socotinaa dalfac aawe hee dalfac waa taqaanaan inuu u laayay dadkii ugu taajirsa soomaaliya saddexdan jirde xuseen soomaaliya saddexdaasna ugu taajirsaneed jirde inuu u laaye iyo dalfac hee war dalfacoo wiilasheeda waxbarashada jaamacadda ka bixiyo dhaa warka siyaad bar iga daay ma ninkaas hadda tolkiisa saas ugu soo taganay haddii la togto tolkaa kaalis maxay tahay marka yiriiso marka allah u naxariistee nin history kule soomaaliyana wuu ahaa oo xilal badan dalka ka soo qabtay laakiin kiiskiisa waa ka duwan yahay yiriiso sir laga dishay horta haddee aaminsana wax badan oo laga dishay horta animaba aaminsanayba inuu haayo laakiin yiriiso maalintii wuxuu dhaha ninkaa siyaasiga ah oo dilkiisa meedkiisa ama geeridiisa lagu dhawaaqayo waxaa lagu aadiyo dhaa 1 Agost maalintii ciidid uu dhinto abargidiro iska mashxaradeysa puntland oo aas-aaskeeda ka mashxaradeysa waa maalin dee oo qiiro le mugta iyo madaxweynihi baasaboorkiisa celiya maalinkaasaa geerida lagu aadiyo dhaa
si dadka Soomaaliya ay u kala mashquulaan that's the political issue or stress Soomaalida oo yaraanaya mashruuca lagu furaa madaxweynihii baasaboorka bedeshay Puntland maanta waxay leedahay qof oo ma taqaanaa focus saaraysa geeridiisa ma laha qof kacaysa ma laha waana arin weyn waay taasna madaxweynaha baasaboor iyo sabar loo celiyay iyo dhul celiyay iyo hebel celiyay tan lagu aadinayay ninka siyaasiga warkiisa waa war macquul ah waay waan inta xasarada ay leedahay ma taqaanaa ama maalin muhiim ay tahay lagu aadi taas horta iga qaata waa aqbalna Soomaa midda kale hadda maadaama ninka abgaale soo socdo yariiso uusan nin daa'uud oo qadeewa uusan ka laan dheersaneen uusan ka qabiil weyneen kana libaxsaneen yariiso nin wax buurino daa'uud ah waa daa'uud waa taqaanaan nimanka abgaal isku haayo waa kala haayo isku haayo la'aantoodna oo Switzerland ba abgaal ka dham ana saa aaminsanaa waa aslaay laakiin daa'uud laf dhaxaad ka dhan oo abgaal ah waa hadda taqaanaan nimankaas ninkooda la cunay ninka soo socda ama ilaha noqdo ama reer mataanada ay kulli wax buurina imaanahay maadaama ay kala qaateen waa u jeednaa wasiirka amnigana waa loo diido gobolka oo aasliina wasiirka ganacsiga qaateen intana wax buurina u banaanta ninna camleeya haduu imaado horta sida habeen hore idin sheegane bisadaha laba u kala baxaan mid rabaayad ah iyo mid durjoog ah waay mid rabaayada ah waa teerabi waa mid durjoogta laakiin ugaarsiga ku dheeraysa rabaayada ugaarsi ma taqaano sideedaba marka waxay rabaan bisad oo aan rabaayad ay rabaan mid oo rabaayad ay marban mid rabaayad ay rabaan marka midka soo socdo waxaan ugu digaa stadium Muqdisho wala dayactirooyay idayaa lagu magac darin ninka soo socday abgaal taasaan ugu digaa aniga midda kale lacaga qasnadii lagala baxado gobolka markuu yiriiso dhintay 800 oo kun oo dollar 1 milyan wax yaraa dhiman yiriiso ma dhintay waa la kala boob taas horta dadkeena waxa ka maqan wararta niyo sheekadan oo waxaan rabaa inaa wax yar idinla kaftamo gobolkan banaadir horta arintan dad badan ay qusaysaa dad badan ay ka cumaan doonaan inkastoo qodobkayga ay quseen ana aan jecel hadaan mar leef soo galnaa isku wada dhameys isku jamciyo gobolkan banaadir dadaale qabiil ale iyo hebel ale ma ku dhahay dadaale adiga maskaxda ka guumeysanta waxa laga dhadhiciyay magaalada la isla leeyahay aniga fiiri Finland degana baasaboorka finishka haystaa citizen Finlandese ahay waxa la ii sheegaa inaan Finland dadka Finlandeeska la mid ah haddana gudoomiye kama noqon karo xaafadeeda madaxweyne kama noqon karo wasiir kama noqon karo waa boojo waa hawiyaha saasa loo boojeeyay dadka wada simiina leey war wax siman ma jirto war qabiil walba deegaan uu leeyahay gobol uu leeyahay ceeb ma ah taas banaadirna caasimad kumus xamala la dhijray meesha caasimad wax loo bixiyo ma markay dhalinaysa iyadoo qaangaara caasimad loo bixiyo gobolka dadkii loogu imaaday dadkaas ani ma dhahayo awoodda loo daayo ma dhahayo because iyaga aan bagaranay inay awood leeyihiin ee wax maamulo karaan ma bagartaan be dad noocaasa maxaa horta oo awood lagu daayaa marka dad yahow haddaad rabtaa inay xamar xasisho inaan ninka imaado ama farmaajo ha noqdo ama qeyraha noqdo ama xamsi shaqa noqdee idinka maamulkiina sida Puntland iyo Jubbaland ha idin noqdo ama galmudug iyo Hirshabelle ka sii hooseeyo nin hanila keeno lacag ha cuno ninka hal dhaafir dhaqaalaha dekadii airport soo galo maxaa iga ogashay ko ama madaxweyne soo sharaxay maya haysansa gudoomiye gobolkaaga dhiga ama han leedahay kor gudoomiyaha cusub waxa lagu xujeeyabo han ama leedahay waana madaxweyne ugu horeeyay farmaajo dhahay maanta nin abgaala halay kor han ma leedahay maya gobolkan ku saaraa dad u dira rufiyaana han hadoo la iisoo sheegaya hanka muxuu yahay waa madaxweyne tartan ku jira waay because lacagta gobolku dhuuqaamo haduu han laheena farmaajo u keenano ho farmaajo ho dadkiisu ka qaadaa canshuurti farmaajo u keenaa hay ka sheekeeyay taas ma fahantiin ninka la keenay han malaha laakiin balan waxaan kaga qaaday ciyaaraha soo galayso waa ka xumaay inaan Manchester taageera daawada raba ninka la keeni doono taariikhdiisa oo kaamilna idin keena haduu han leeyana ilaahay baa abuurta qabri Allah waa sheega haduu han leeyana waa sheega saqajaani ma qanani in raw lagu xad gudub sharafkiisa ma garanayaan marka lagu dhawaaqo waxaan leeyahay hebel han male saas waa rabaayad waay lacagtan ninkaas u shaqeeya haduu han leeyana ninka rag waa loo qiraa kugu qabiil ha noqdo ama yoo noqon intaas ku soo gabagabeena ama kanax ama ku farax ama reexaanimo farmaajo u jeclaaw ama nabad in nolol ku sirnoow ama wardhigle ku ahaad Soomaaliya ama amisom amniga ku sugto Ahmed Madow waa qadeeyay xafidullah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.